wafdigan ballaaran ee ka socday Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa hogaaminayay Wasiir Kuxigeenka Wasarada Howlaha Guud dib u dhiska iyo Guriyayna waxaana wafdigaasi ku wehelinayay wasiirka guddiga u qaabilsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Howlaha Guud dekadaha gaadiidka cirkiga dhulka waxaana guddigani ay ugu horeynba hawshooda ka bilaabeen dekada Dooraale oo ku taala caasimadda dalkani Jamhuuriyadda Djibouti waxayna u kuurgaleen sida dekadaasi ay u shaqeyso iyo waliba qaababka kala duwan ee rarista iyo dejista ka socota halkaasi waxa sidoo kale ay soo daawadeen qaybaha kala duwan ee dekadaasi iyaga oo inta kadibna u dhaqaaqay dhinaca dekada kale ee marsada terminalka ee iyana ku taala wadankani Jamhuuriyadda Djibouti goobtaasi ayaa waxa ku soo dhaweeyay shaqaalihi halka ka shaqeynayay iyo farsamayaqaanadii iyaga oo sidoo kalena u macneeyay qaabka howlaha halkaasi ka socda iyo sidoo kale hawsha ballaaran ee dekadahani ay fuliyaan waxa sidoo kale wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminayay ay soo booqdeen saldhigga tareenada dalkani Jamhuuriyadda Djibouti kuwaas oo isku xira dalka Itoobiya iyo Djibouti iyadoo tareenadaasina ay isugu jiraan kuwa xamuula iyo kuwa kale dadka qaada labadaba waxaana saldhiggaasi ay kula kulmeen injineero shiinaysa oo iyagu goobtaasi ka shaqeynayay waxayna u macneeyeen wasiirka iyo wafdigii ka socday golaha shacabka ee Soomaaliya sida hawsha halkaasi ka socota ay tahay iyo waliba dadaalada ay ku howla yihiin wafdigan ballaaran ayaa waxa ay casuumaad ka heleen shirkadda CCICC ee wadanka Shiinaha laga leeyahay oo ayadu suurta gelisay dhammaan mashruucyada ka soconaya dalkani Jamhuuriyadda Djibouti oo isugu jira kuwa wadooyinka dekadaha iyo waliba qaybaha kala duwan ee dalkani iyadoo sidoo kalena wafdigani ay hore u soo mareen dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa magaalada Dirdhabe oo laba cisho halkaasi ay ku sugnaayeen iyagoo u kuurgalayay hawsha ballaaran ee dawladda Shiinaha shirkadan laga leeyahay ay ka qabatay wadamada Djibouti iyo Itoobiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo waliba Guriyayna Jamaal Xasan Ismaaciil oo wax ka weydiinay hawsha ballaaran ee halkani ka socota iyo waliba waxyaabihii uu la soo kulmay ayaa waxa uu yiri Djibouti kale ma hayno socdaalka waxaan ka soo bilownaa Addis Ababa Dirdhabe iyo Djibouti oo nagu dambeysay MIIKAAHIIL ama targetkayaguna wuxuu ahaa in aanu guddiga infrastructure-ka u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya ee federaalka in ay bal intii inagu aynu gabadhacleynay in bal caalamku Afrikada bari geeskan Afrikada bari sidoo u hormaray in bal indhaha la soo mariyo si aynu wax u qaadano oo dalkeena maadaama maanta uu socdo dib u dhis iyo magaranayay dib u hagaajin in aan anaga baarlamaanka maadaama wasaaradda howlaha guud dib u dhiska Guriyayna aan anaguna nahay in aan isla jaan qaadno oo qarankeena aan si u dhisi lahayn ee la jaan qaadi lahayn dalalka geeska Afrika aan naam hawshaas darteed ayaan kormeerkayagu ahaa waxaa sidoo kale waraysanay gudoomiyaha gudahowsaadka howlaha guud dib u dhiska iyo Guriyayna golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Cumar Dalxa socdaalkeena mid aan soo eegaynay mashaariicda ay ka hirgeliyeen labada dal waxaana runtii aan ka marxaati kacaynaa mashaariicdii ayaga ay soo qabteen runtii company-gan Chinese-ka ee CCCC TCO la yiraahdo runtii wax aan ka sheekeyn karin oo haddii ay ahaan lahayd wadooyin oo tariina mara haddii ay ahaan lahaayeen laamiyo haddii ay ahaan lahaayeen warshado haddii ay ahaan lahaayeen guriyo oo dadka danyarta loo dhisayo haddii ay ahaan lahaayeen mashaariic oo shaqo abuuris oo ay ka heleen dadka ku nool labada dal Ethiopia iyo Djibouti MIIKAAHIIL عبد الرشيد BARRE راديو تلفزيون قناة الصوماليات